شوفان سويجي فريهاي مربى عيان يرى حوغا سينكل لمو سبيك دلنا تشك حالتي تشك فتجورة والله أنا بيني شيء أنا runta يقول مع fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe noo saar janalka like-ta nagu dhiirageli commentigana fikirkaaga waa inoo muhiim dunidu waa meerto cidnaha collaysan cidnana ha gacalaysan si xaddhaaf ah cid wax kuu sheegtayna darteed cid kale ha ula diririn maalmo un ka hor ayay ahayd markii dad badani raaga cabdi ay kula colloobeen kala taggii qaaliladan halka kuwa kale ay qaaliladan kula colloobeen kala taggii raaga cabdi raagayii qaaliladan oo ahaa dad lamaano ah islamarkaasina aad ay u jeclaayeen bulshada soomaaliyeed magac iyo maamuusna ku dhex lahaayeen ayaa waxaa mar un soo ifbaxday dhammaadkii ramadaanka in ay kala tageen raage iyo weliba khaali balse sheekadu dad ayaa buunbuuniyey oo xagallo kala duwan la aaday oo hadba buuro la koray balse maysan jirin cadaawad iyo weliba xumaan ay iyagu isu mariyeen baraha bulshada waxa ay ahaayeen dad saaxiibo ah oo sidii shalay markii ay wada joogeen ay ahaayeen iskaga fiicnaa maalmihii ay kala maqnaayeen dadka soomaalida oo seeflabood ah ayaa inta badan waxay ahaayeen kuwa ku kala qaybsan ra'yiga in qaali ay saxan tahay iyo in uu raage saxan yahay iyadoo baraha bulshada aad loo hadalhayay khaaliladan ayaa horaantii inta aysan cunugan yar dhalin ka hor ka baxday fanka iyadoona sababo jira awgood oga baxday laakiinse waxaa la filayay markii ay raage kala tageen in qaali fanka ay dib ugu soo laaban doonto laakiin maysan dhicin oo taasi sabab umaysan noqon in qaali ay fanka raage cabdi dartii oga baxday balse waxaa soo baxday in arrimo kaleo u gaar ah ay oga baxday iyadoo arrintoodii halkaasi ay ku dansaneed in muddo ah ayaa waxaa daqiiqado gudahooda un ku soo ifbaxay in khaali oo la kaftamaysa bulshadii iyo weliba iskaabuladii in muddo ah ay maaweelin jirtay ama ay la kaftami jirtay lagu arkay iyadoo leh adeerayaal ooday rogan jaantay rogan hadday ahayd hadda waa ooday rogan ilbaabkay xiran khaali ayaa waxay sheegtay in iskaabulanimadii iska fardhisay dee xaajigiina haye dib la iskugu laabtay arrin farxad leh dhiilana aan lahayn dad badanna ay soo dhoweeyeen balse dadka soomaalida ee baraha bulshada isticmaala ayaa hadba xaaladda jirta markaasi qaada oo buunbuuniya ayagoo marba dhinac la aada kabixidda qaali ay sheegtay iskaabulama inay ka baxday ayaa durba waxaa soo ifbaxaya arrimo badan oo loo sababaynayo islamarkaasina dadka ay u aanaynayaan walow aysan raage iyo weliba qaali markii horena furiinkooda intay meel u soo fadhiisteen ay waxyaabihii ay iyo khilaafaadkooda aysan ka warramin haddana xalkoodii aysan ka warramin fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe noo saar janalka like-ta nagu dhiirageli commentigana fikirkaaga waa inoo muhiim